Asalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka waxaan kusoo qaadan doonaa isku aadka tartanka Champions League iyo kan Europa League. Waxaan isku aaday kooxo weyn ee qaaradda Yuruba ka wada ciyaara. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo sar barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka, subscribe siina share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina. Waxaa la sameeyay isku aadka tartanka Champions League waxaana isku beegmay kooxo waaweyn oo jeclaan lahaa in ay kala badbaadaan marxaladan ay isaga hor imaan lahaayeen semifinalka ama finalka tartanka Champions League. Kooxda difaacanaysa ee Champions League oo wareega 16 ka soo adkaatay Liverpool ayaa waxay isku dhaceen Chelsea oo iyadana soo reebtay kooxda Borussia Dortmund, taasi oo sanadkii hore ay wareega dhamaadka tartanka Champions League ku garaaceen. Waana sanadkii saddexaad oo xiriir ay isaga hor imaadaan tartanka Champions League. Manchester City ayaa aflibax gashay oo ku dhacday kooxda Bayern iyadoo tababare Pep Guardiola uu dib ugu noqon doono garoonkiisii hore Allianz Arena. Inter Milan ayaa imtixaankeedu uu ka fudud yahay naadiyada kale ee tartanka Champions League, waxayna isku dhaceen kooxda reer Portugal ee Benfica, laakiin AC Milan ayaan dalkeeda Talyaaniga dibadda uga bixin, waxayna isku dhaceen kooxda Napoli. Isku aadka tartanka Champions League, Real Madrid waxay la ciyaareysaa kooxda Chelsea, Inter Milan waxay la ciyaareysaa kooxda Benfica, Manchester City waxay la ciyaareysaa kooxda Bayern, AC Milan waxay la ciyaareysaa kooxda Napoli. Dhanka kale, isku aadka semifinalka tartanka Champions League ayaa la sameeyay iyagoo kooxaha soo gudba ay og yihiin naadiyada ay la ciyaari doonaan marxaladda xigta ee tartanka Champions League. Imtixaanka adag ayaa sugaya naadiyada waaweyn ee haddaba afka libaax galaya. Real Madrid iyo Chelsea, Manchester City iyo Bayern oo midkood tagi doona finalka, halka afarta kooxood kale ah AC Milan, Napoli, Inter Milan iyo Benfica ay midkood imaan doonto finalka tartanka Champions League. Dhanka kale, waxaa la sameeyay isku aadka wareega dhamaadka iyo dhamaadka tartanka Europa League ayaa la sameeyay, waxaana markii saddexaad oo xiriira Manchester United ay wajihi doonta kooxda reer Spain iyadoo tababare Erik ten Hag uu noqonayo wadka kooxaha reer Spain. Red Devils oo ah kooxda sida weyn loogu saadaalinayo inay ku guuleysan karto tartanka Champions League ayaa hore waxay u soo reebtay kooxaha Barcelona, Real Betis, haddana waxay isku dhaceen kooxda guulaha badan ee tartanka Europa League ee Sevilla. Juventus ayaa aflibax gashay waxayna ku beegantay kooxdii soo qaarijisay Arsenal ee Sporting Lisbon oo xalay Rigoryaal kusoo garaacday kooxda Arsenal, halka AS Roma ay wajihi doonta kooxda xasuuqa xalay geysatay ee Feyenoord. Kooxda tababare Alonso ee Bayer Leverkusen waxay kala calaf qaadi doonaan kooxda Union Saint. Isku aadka wareega dhamaadka tartanka Europa League, Juventus waxay la ciyaari doontaa kooxda Sporting Lisbon, Feyenoord waxay la ciyaari doontaa kooxda AS Roma, Bayer Leverkusen waxay la ciyaari doontaa kooxda Saint. Dhanka kale, waxaa la sameeyay isku aadka wareega semifinalka ama wareega afardhamaadka tartanka Europa League iyagoo la og yahay wadada loo marayo finalka iyo ciyaarta ugu dambeysa. Manchester United ayaa haddii ay ka soo adkaato Sevilla waxay ku dhici doontaa Juventus ama Sporting Lisbon, midkood kii soo baxa, taasi oo abuuri karta fursad uu Paul Pogba ugu soo laaban karo Old Trafford oo uu kaga hor imaan doono kooxdiisa hore Manchester United. Dhanka kale, kooxda AS Roma ayaa hadday soo gudubto oo ka soo adkaato kooxda Feyenoord waxay ku dhici doontaa oo ay semifinalka wada ciyaari doonaan kooxda Bayer Leverkusen iyo Union Saint, midkii soo baxa. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo sar, subscribe siina share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro. Mahadsanidin.